qof kastoo inaga mid waxa uu leeyahay awoodo u gooniya iyo riyooyin ay xamaasad u hayso xaqiijintooda hayaanka iyo loolanka aadanuhu ku jiro waxay ku biyo shubanaysaa samaan iyo xumaan wadada dhowna way ka halis badan tahay tan kale Scarface da'yarkan waxa uu ku barbaaray Mareykanka xiise badan baana u hayay inuu mar uun la jaan qaado shuftooyinka adduunka qarnigii galbaday sodomeedyadiisii ayuu laf dhuun gashay ku noqday dowladda Mareykanka haddaba waa kuma Scarface magaciisa dhabta waa Alphonse Carboni labadiisa waalidoo qaxoonti ayuu ugu dhashay magaalada New York sanadkii 1899 bartamaha wadooyinka cidhiidhiga ee Brooklyn ayaa aabihii u dhiibay daasadda kabaha lagu baalasheeyo halkaas ayaana Alphonse ugu bogay shuftooyinka iyo siday u dhigmeeranayaan ganacsatada iyo macaamiishiisa baalashka waxaana laga yaabaa inaad isweydiiso sidee ayaa ilmo yar ugu hanqaltaagi karaa falalkan foosha xun Carboni caruurnimadiisii waxa uu ahaa wiil dhib badan oo hagardaamadiisu ay ka fogeysay waxbarashadiisa isagoo 14 jir ah dugsigii uu dhigan jiray ayuu la dagaalamay barihiisa markaas ayaana uu soo gaadhay dhaawaca wajigu waxaana loo bixiyay Scarface shufto dambiyada fudud geysata ayuu ku biiray halkaas oo uga sii gudbay Chicago sanadku markuu ahaa 1920 waxa Carboni ku biiray burcad ka ganacsata hawlaha sharci darrada una hogaamiye u ahaa Johnny Torrio oo hadhow noqon doona Alphonse barihiisa dhabta si degdeg ah ayaa Carboni ku noqday hormuudka shuftooyinka maandooriyaha ee Mareykanka ugu caansan waxaana miisaaniyadiisu gaadhay $100 milyan sanadkiiba waliba intii lagu guda jiray xanibaadii khamriga lagu soo rogay ee Mareykanka sanadihii 1920 ilaa 1933 Alphonse kama uu shalayn shaqooyinkan uu ka dheefay hantidaas badan balse waxa uu ku doodi jiray inuu bulshada reer Chicago dhan kale ka tusay waxa ay dawladdu ka xanibtay siday u qurux badan yihiin Carboni cid kasta carqalad ku haysa hanaanka ganacsigiisu socdo waxa uu siin jiray laaluush ama qudha ayuu ka jari jiray sare u kac baaxad leh ayaa ku yimi boqoleydii dalalka iyo falalka cunfiga ku salaysan ee Chicago ka dhaca ilaa uu maamulka gobolku soo saaray liis ay ku xusan yihiin dadka ay magaaladu ka seexan kari laadahay waxaana kalinta koowaad ka galay Scarface xarunta dabagalka ee sirdoonka dowladda federaalka Mareykanka ayaa faylalkiisa furfurtay balse laaluush iyo goodinuu sameeyay ayaa ka durkisay Alphonse inuu xabsiga muddo dheer ku xidhnaado waagaas waxa ahaa cadowgiisa ugu weyn Elliot Ness oo xafiiska sirdoonka Mareykanka u shaqayn jiray Elliot wax laaluusha kama u qaadan Carboni isagoo aasaasay shabakad lagu magacaabo The Untouchables kooxdan Elliot si xoogan ayuu u rabaayadeeyay waxaana adkeyd in la iibsado ama ay laaluush qaataan ugu dambeyntii Ness iyo kooxdiisu waxay ku guuleysteen inay loodiyaan Alphonse balse xukunkii maxkamaddu ay soo saartay waxa uu ku salaysnaa inuu baalmaray cashuurta ee maaha dilalkii uu geystay waxaana lagu xukumay 11 sano sanadkii 1931 waana xukunkii ugu badnaa ee qof cashuurta hareer mara lagu fuliyo waagaas mid ka mid ah hormuudkii burcadii ugu khatarsaneyd Mareykanka ayaa garka ciida loo daray sanadkii 1939 ayaa xabsiga laga sii daayay kadib markii xaaladiisa caafimaad ay sii xumaatay waxaana haleelay xanuunka faaliga loo yaqaano halkaas uu sanadkii 1947 u geeriyooday wadna istaag isagoo ku sugan aqalkiisa dawada haddii muuqaalkan ku cajabiyay la wadaag asxaabtaada naguna soo bir